Inyakati waktiga huwakilisha hukumatalaya kwa kutumia sida loo isticmaalo mufimu au viambishi horgalaha. Viambishi iyo mufimu wa isku mid maalum oo gaarka ah na rasmiga kama vivotavyo. For example ama tusale. Okay, inyakatiyashan waxaa waaye waa waqti ay ku saabsan na waa waqti taagan li waqti tagay ee loo isticmaal karaa taana waa mustaqbaleed meena waa mustaqbal oo dhameystiran oo haadir ah ee loo isticmaal karaa kuna waa negative ahaan ama diidmo ka waa iska caadi hadal caadi ahaan ay isticmaal kartaa ingali iyo inge haddii if amal harfaha ifka amal wakati uliopo waqtiga taagan ama present tense-ga oo horgalahooda ama helbing verb-ka u isticmaal lahayd waa na. Wakati uliopo waqtiga taagan huwakilishwa hukumatalaya na'da kiambishi horgalahooda uu yahay na'da. Inyakati horgalaha huwakilishwa hukumatalaya kwa kutumia sida loo isticmaalo mufimu au viambishi horgalahooda maalum oo gaarka ah na rasmi na markaan isticmaalnayna ninaenda niliandika waan qoray. Okay, mifano tusale. Umoja wa mufrid ama singular ama iyo plural. Xarfaha aad u jeedaan oo yelowga ah jaalaha ah waxay ku matalayaan inay yihiin jamac. Xarfaha aad u jeedaan oo mudowga iyo cadiinka matalaya kuwaasna waa mufrid ama singular. Unakuja waad imaanaysaan. Mnakuja waad imaanaysaan. Bu'da waxay isku bedelaysaa jamceeda unakuja waad imaanaysaa adigu yahay. Unakuja waad imaanaysaa. Bu'da jamceeda waa ma'aba isku bedelaysaa. Unakuja marka waxay ku bedelaysaa marka you are coming. Unakuja you are coming. Okay, that is simple. Mzee odaygana anakunywa wuxuu cabayaa chai yake shikiisa. Marka chai is adjective noun oo isbedeli chai yake iyada ama asaga. Yake waxa usmanta iyada ama asaga. Now yake waxa isku bedelaya yao shahooda. Mzee odaygana anakunywa wuxuu cabayaa chai yake shahooda. Wazee odayaasha wanakunywa waxay cabayaan chai yao shahooda. Ninasoma waan akhrisanaya. Ni'da for kibinafsi, nada for viambishi awali. Soma waa vitenzi wa fi'ilku waay marka. Ninasoma waan akhrisanaya. Tunasoma na akhrisanayna. Anakuja kazi sida imaanaysa. Akimaanaysa wanakuja kazi sida imaanaysa. Karibuni mtaonana baadaye.